Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo dib u heshiisiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya Janaal Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada qalabka sida kuwa booliska maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne. Kulanka ayaa looga hadlay xaaladda ka taagan magaalada Beledweyne iyo sidii la iskaga kaashan lahaa nabadda iyo xasilloonida gobolka. Janaal Mukhtaar ayaa warbixin ka dhageystay laamaha amniga wuxuuna xoojiyay in muhiimadda koowaad la siiyo amniga iyadoo la kaashanayo bulshada qaybaheeda kala duwan. Wasiirka Arrimaha Gudaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Janaal Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa sidoo kale waxa uu kormeeray qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Beledweyne. Dhinaca kale, shir ay yeesheen wasiirka iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa la isku raacay in maalinta berri ah ay shirka ku soo biiraan madaxda Hirshabelle ee ku sugan magaalada Beledweyne, gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamuud. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa ka taagnaa magaalada Beledweyne rabshado looga soo horjeedo madaxda maamulka Hirshabelle.